بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمان مرتي شرفت لها قولها جوجتا waxaan marka hore doonayaan iskiin baro Umar Ali Hassan Umar Serbia Umar waa nin suxufi ah waa sidoo kale nin qoraa ah oo soo saaray buugan in hore yaal fan iyo fanaan Umar wuxuu ku dhashay deegaanka Hargeysa waxbarashadiisa hoosena Hargeysa ku qaatay waxbarashadiisa oo degree la master's degree oo dhowr cilmi oo maxaa la dhahaa koorso kala duwan ku sameeyay buu ayuu hadda wada takhasus Umar sidoo kale waxa weeye maxaa la yiraahdaa wuxuu kamid yahay maamulka telefishinka la yiraahdo Astaan TV oo wada taqaanaan runtii xooga saara dhaqanka iyo fanka iyo nooleynta suugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan heesihii hore oo si casri ah loo duubo oo dib loo habeeyo Umar wuxuu kamid yahay soo saarayaasha iyo madaxda barnaamijkaas iyo telefishinkaas caaw halkan uu inoo sida buuga la yiraahdo fan iyo fanaan oo موضوع أو كهذا يمجعوا يفسر كوان وصور ونحسين سينايو واحد عمر قرد دونينا سيو فرصة وغشر حوضت كقولها شوجا بالحلقي وصوب لها بالشقة بوجن يو بوجوا سواقري حاجة الله حالة الله لكن هو ربنا العمر ناشر حو وحياليه كل رجالي ما دام هان الصحفي أو بدنين على صحافة صوبته وحوجه وصاري فني قاص مدينة عاص فنك الصومالي ذا iyo intii buuga waday shaqadii buuga ka soo qabtay waxyaalihii la soo gudboonaaday soo dhaw Umar assalaamu alaykum waa mahadsantiin dhamaantiin caawis wanaagsan waxaan mahad celinayaa dhamaan dadka halkan fadhiya ku soo bixiyay waqtigooda inay labada mawduuc halkan lagu hayo dhageystaan aragtidooda ku kordhiyaan aniga magacayga waxa la yiraahdaa Umar Ali Hassan dadku waxay inta badan ii garan og yihiin Umar Serbia background sida uu sheegay haykel aqoon ahaan dhowr field baan sameeyay oo kala duwan mass media education masters law IR and diplomacy hadda sida uu sheegay waxaan bara sidoo kale ka ahay Somali National University oo qaybta literature kan macallin ka ahay buugga markay noqoto si kooban hadaan uga hadlo horta macluumaadka ku qoran iyo muddadu qaatay iyo mid kasta meesha loo maray dadkii aan la kulmay taariikhdooda waxay ku qoran yihiin buugga marka waan dul istaagay laakiin qofkii detailed u raba de buugay tahay inuu akhriyo qofkii hore u akhriyay kulli waa arkay buuggu wuxuu ka dhashay research aan waday muddo 10 sano ah oo ku saabsan suugaanta iyo fanka Soomaalida gaar ahaan suugaanta laxan kale oo dabcan ah heesaha iyo lamaanayaashooda iyo riwaayadaha iyo kamid yihiin taariikhdooda iyo laxankii research kaas oo runtii aad u badan marka la soo koobo waxaan ka dhigay ilaa 4 qaybood oo qaybtan ay ugu horeyso haddii hal mar la wada daabaco waxay noqonaysaa number aad u badan inagana akhrisku inooma fududa sida dhaqan ahaan marka bal waxaan isii dadku ay u akhriyi karaan in la kala qaybiyo oo tan waa horumada koobaad kuwa kalena way ku xigaan sidoo kale tani waxay ka kooban tahay marka wax la qoraayo wixii uu taariikh iyo dhigaal noqonayo waxa aad u muhiim ah wax sugan oo accuracy-giisa aad runtii 100% hadii aad hubto inaad qorto marka kuwii hubinta u baahnaa ama weeraan su'aalaha aan ka qabay iyaga dib aan u dhigo hormooyinka soo socda insha Allah ay ku jiri doona iyaguna hubsan laakiin tani waa tii aan hubi si guud bulshada Soomaalidu waa bulsho fanka iyo dhaqanka maaragtay suugaanta aad ugu xeel dheer oo waxa marxaati ah dadkeena inagu mudanay waa intii ama heestay ama gabayday ama geeraartay ama si uun suugaanta ugu lug lahayd dadkaas taariikhdoodii in meel lagu ogaado oo la hubiyo waa door qof kasta waajib ku ah aniguna ka faa'iideysanaya labada platform aan haystay oo research kana maadaama concept iyo fikrad fiican aan ka qabo platformki ama meelihii aan ka sheegi lahaay warbaahintan aan haystay mas'uuliyadda waxaan arkay sidii dadka kale maaragtay u saaran tahay
inay anigana ii saaran tahay taas horta ka dhalatay inaan maarad u dhaqaaqoon de sugaanta iyo taariikhdan aan kaydiyo si kalena wixii haddii aan la qorin cilmi ma aha waa un sheekad laba qof ay iswadaarsadeen ama qof uu sheegay number badan cabdideeqsi warfaa waa kii lahaa odhaahda caanka ah ee wixii la qoraa quruuma hadhee muxuu hadal qiime leeyahay oo ka dhigan wixii carabtuna waxay dhahaan maa kutiba waqar ama maaragtay wixii la qoro ayaa sugnaada marka horta taasaa ujeedku uu ahaa aan u qorayay oon maaragtay u dhigayay waxaan runtii ku salaysan yahay qaab research ah researchka waxaa muhiima waxaa la yidhaha qofku markuu researchka waa inuu ka jawaabo su-aal la yidhahdo 5W&H oo ah macluumaad qofka kaga filaan karta masalada jawaabta masaladii uu qabay marka qaabkaas ayuu ku salaysan yahay fanka Soomaali dad badan cilmi ma moodaan waayo inta badan dadka hibooyinka lehi schooling systemka ma maraan qofka waxa laga yaabaa hibadiisii waana sababta inta badan inuu aragno fankii oo ama sawir kale loo sameeynayo ama qofkii aan wixiisi difaacan karayn iyada lafteeduna waa mushkiladaha soo waajahay in aragno marka qaab noocaas oo tasqiifaysan oo cilmiyeysan ayaan runtii u dhigay oo isleeyahay ugu yaraan qofkii dad badan baa joogo abwaan Saciid Saalax waxaan maleynayaa inuu fadhiyo Saciid iyo kooxdiisii iftin wax badan baa kaga jira Rashiid Basna jooga dadka qaarna waxay u noqonaysaa xusuusin oo dadkii way jooga waa xusuusin kuwa kalena waa waxbaris marka nuxurka guud ee bogu horta waa sidaas aad baad maasantahay Umar buuga waxaad hordhaciisa aad u sharaxday waxa la yiraahdo fanaan intaan loo tigin Soomaalidu waxay fanaan ka taqaanaa qofka heesa marka fanka markaad sharaxaysay waxaad xoog saartay Soomaalida dadka ugu talgashay qoraalku inuu gaaro inay fahmaan qiimaha ay fanka ku dhex leeyihiin iyo doorka ay fanka kaga jiraan dadka loo yaqaan la xibistayaasha oo waxaanaynu dhageysanaa fanka casriga marka qaybta heesaha laga hadlayo waxa hees sameeyay kadib hadalka caadiga ee uu sameeyay dhadhanka inuu jeclaysano ama xasuusano inuu yahay waxa loo yaqaan laxanka aad waxaad xoog u saartay in dadka barto kaalintooda iyo doorkii ku lahaayeen oo dadkaas intooda badana si marka loo eego dad dhoobad ku dhigsan tahay oo aan la aqoonin ama aan la xusinba dareenka waxaan farintaas xambaarsan tahay baladaas ku yardeed inaad dadka u sharaxdo waa maasan tahay laxanka horta laba hees ama erayo waxa kala fadila laba nuxur oo kala duwan u yeelaa waa laxanka tusaale ahaan heesta beledweyn oo mar aan maartay questionnaire dad weydiiyay noqotay heesta Soomaalidu ugu caansan dhexdeeda iyo heesta kale ee isla beledweyne Cabdiqays uu leeyahay Maxamed Mooga qaado labada hees erayada hadii la tartansiyo waa laga yaabaa in Cabdiqaysba maaragtay cudoontahay baa suurtagal ah laakiin nuxurka u dhaxeeya aniga aragtidayda waa labada laxan ee kala saaran hees aanad garanaynin midhaheeda aanad fahmaynin sababta u dhageysan kartaa waa laxankeeda aniga laxankii u horeeyay runtii aad u la tacajabay waxay ahayd nashiido ama hees u lahaa ilaahay ha u naxariista Dr. Yusuf Abdullahi Al-Qardawi oo dhawaan geeriyooday waa nashiidada ama heesta la yiraahdo muslimuuna mar hore oo dugsiga dhiganayay dhexe ayaan saf ka akhrinay kadibna waxaan aad u la tacajabay erayada laxanka la saaray iyo qaabkii u yaalaan ilaa xilligaas laxanku macna gooniya ayuu ilaha laxankuna waa waxa kaliya ee hees intuu maaragtay dadka afkii ay ku qornayd ama dadkii fahmayay dadaan ahayn jeclaysiin kara heesaha Soomaalidu waxay leeyihiin qaar saas oo qaaradaha ka gudbay tusaale ahaan heesta la yiraahdo isna ima daryeelo ee uu lahaa Maxamed Cumar Xuseen Huriyo waxa la xameeyay Maxamed Cismaan Wardi Maxamed Wardi sidaan ognahay nin Suudaani oo runtii marka heesta Suudaantu way qaadaan oo way dhageystaan erayada xataa fahmin qofku uu dhageysanaya qofka mulaxankii marka waa farshaxanka ugu sareeya fanka Soomaalida ku jira waxa laga yaabaa inteenan hadayna isku tagna hadda marka laga yaabaa abwaanada
inaynu ereyo samayn karno laakiin laxan in la sameeyo iyadu waa maaragtay waa xeel dheeri kale marka qofka mulaxanka ahi oo ah artistaha ugu sareeya marka laga hadlaayo isku geynta wax soo saarka faneed ma helo xuquuqdiisa inta badan ereyo mutaxan oo qalalan ninka duxda iyo dufanka u yeelaya waa mulaxanka tusaale ahaan ninka la yiraahdo Axmed Gacayte Yuusuf oo intuu heeso in ka badan mulaxan ahaa heestan Cabdiqaadir Xirsi Siyaad yam uu leeyahay u shamaado qaban la yiraahdo haddii ereyada gaar loo qoro iyo haddii heesta laxan lagu qaado farq weyn baa u dhaxeeya ayaa way waxaas oo dhan waa laxanka Cabdiqaadir yam wuxuu qoray ayaa uga warrama bas laakiin ninka intaas maaragtay nuxurka u yeelaya waa mulaxanka marka qofka noocaas ah in la darso oo la sheego wuxuu ahaa oo doorku u taagnaa iyo wixiisuna artistic yahay oo wax maaragtay xirfad iyo hibo u baahan baahda taaliiftu galaa marka laxanka laga hadla laakiin dadkaas muhiim ilaa 9 artist mulaxan ama dadka melodiga sameeya ayaa ku qoran ilaa 15 kalena waxay ku jiraan dabacadaha kale ee soo socda insha Allah marka mulaxanka anigu muhiimadaas markaastaan islaayahay uu leeyahay kulli waa laga yaabaa doodo kale dad qabadeynay jiraan laakiin saasaan arkin aad baad ma santa Umar anigu taalaxanka wali doonayeen erey ku sii daro waxa xasuusiyay Axmed Gacayte heesta uu talahan filayno alifay Cabdi Qays hadaanan khaldanayn dunia wada halawsan ereyada markan maadaama suugaanta waxay ka baxseen marka akhriyay waa god yar oo aad u gaaban suugaan ahaan oo fudud marka si loo eegayo marka la qoriyana aad u yar yar oo maartay beedahan ka kooban marka waxaan qiyaasay xilliga 7-7 ka fiilaya 67 waa xilli hore marka xilligaas markii la sameeyay ereyadaas abwaanku dhiibay waxaan xogaa fiishi wala iskariye maskaxda ka soo wartay iyadoo meel la fadhiyo ereyada yar saa u kooban ee maanta aan qoraan macna badan lahayn ama dadka suugaanta aad ku sii darsa aanay u arkin yihiin ereyo shilis waxa ka dhigay dunia wada halawsan dadka wada jacaylka waa laxanka waxaad aad xustay Umar oo buuga cutubka wada aad uga hadashay ninkaad u bixisay macallinkii fanka oo ah Cabdilaahi Maxamuud Maxamed Cabdilaahi Qarshe inuu ahaa aabihii fanka casriga Soomaalida khaasatan fanka tuman marka qodobka ka hadlaysay Cabdilaahi oo in ognahay in jireen dad ugu horeeyay tumista ama qaybaha kamida agabka loo tumo fanka doorku ku soo qaatay ama ku soo kordhiyay fanka casriga Soomaaliyeed bal maxaad ku sheegay waad mahadsantahay horta Cabdilaahi Maxamuud Maxamed Qarshe kaligay ma ahayd sida dad badan baa ila qabaan fankan casriga ah ee reer magaalka Soomaalida hadda aynu adeegsano wuxuu ahaa dadkii hoggaanka oo ahaa amaba hormuudka oo ahaa kaligiis marka waxa lagu lamaaneyn karaa rag dhowr ah waxa jiray Cabdi Xandulla Shanle ninkii la oran jiray waxa kamid ah ninkii la oran jiray Maxamed Ciga Warsame Maxamed Ciga Ilbir Maxamed Saciid Faarax Kuroon jiray ragaasi ragii asaaska ah bay ahaayeen Qarshe wuxuu kaga duwanaa runtii aqoontu fanku aqoonta uu kaaba qofka hibadiisa cilmiga iyo fahamka uu kaabaya sidoo kale ogaalka badan iyo maaragtay xadaaraadka kala duwan ee bulshadu leedahayna qofkii way kaabaysaa marka Qarshe maadaama 3 xadaaradood u lahaa oo xadaaradii uu kala yimid Tanzania meeshii uu ku dhashay ah tii uu kala yimid Yemen ayada tii bulshada uu ka soo jeeday Soomaalida iyo hibadiisa lagu daray waxay keentay inuu ninkaasi nuxur badan oo fanka ku soo kordhiyo gaar ahaan heelooyinka oo ah suugaanta ilaa hadda nool aan dhimanin oo runtii ku salaysan ciyaar dhaqameedka Soomaalida iyo fankeeda ninka u badan ee waa isaga tusaale ahaan heesta la nugul oo ah heesaha ugu badan ee markii fanka la bilaabayay heelada la dhadan ay fanaaniintu ay ku tababaran jireen ninka taaliifta iska leh waa isaga waqti badan baan u galiyay oo runtii hadday noqoto kooxdii walaalaha Hargeysa isaga iyo Xuseen oo Faarax iyo tiimkaas waqti badan bay galiyeen waxaa jira waxyaabo dhowr oo isagu iska leeyahay hindisa tusaale ahaan inta badan suugaanta waxaan arkay sumada
qofku beyd intuu qaado tusaale ahaan ayuu haddana mar labaad ku celinaya isaga iska laha dhextaalka laftiis muusikadu si guud wuxuu qaybsamaa wax la yiraahdo iraac oo tusaale ahaan iyo dhextaalkaas dad baa jira si qurqurxiyo mar dambe oo Bashiir Xaddi kamid yahay laakiin ninkii hindisaas laha isagoo ha marka waxaan maleynayaa waqtigu galiyay fanka iyo taasiiskiisa ma jirto cid kale oo Soomaaliya oo ama dad waa ninka ugu badan noqon kara si kooban aad baad mahadsantahay Cumar buugan runtii waxaan ku dhiirigelinayaa dadka anigu hay inta halkan maanta timaadeen barnaamijkan ka qaybgalkiisu waxaan ku hadlaynaa caawa bandhig buugagsi buugii hore ay soo bandhigtay walaashin Huda Cali Banfas iyo buuganba qiimaha uu leeyahay buugga waxaan aad iyo aad u aan farxad ii ah inaan arko wax soo saar ka duwan wixii aad dadku wax ugu qori jireen oo ah maaragtay darafyadana ay labadan dhalinyarada ay raaceen oo maaragtay wax soo saarkooda ku saleeyeen Cumrow waxaad markaad sharaxaysay heesaha qaranka ee Soomaalida aad uga warantay magacyada faraha badan ay leeyihiin oo anigoo fanka si u jecel runtii aadna u dhageysta heesaha haddana qaar badan ay aabay igu cusub yihiin oo aan hore arag waxaad magacyadooda soo aad sheegtay oo cid inkastoo aan wada xusin cidii aliftay laxanada si kala horeeyeen laxanka la Rifton Iladeel Carwo Kalkaal Layaab Damaq Rogaal Heelo Aroor Madiix Kaar isku shuban Beerdilaacshe waa laxanka ugu jecelahay Beerdilaacshe raaxay Banaadiri raaxay Burcaawi Subcis Laylay Xaafuun Nugul Ciil Sululi Xismurug Jiib balwo rakaad waa farbadin runtii laxmadaas kuwooda ugu magac weyn cidii curisay bal hadaad laba ama hal iyo laba ka xusto horta laxnada qaraamka dadka qaar waxay yaqaaneen hees kasto kama lagu tumo laakiin qaraam waa heesa sumad gooni leh oo waxa la yiraahdaa laxankii ugu dambeeyay qaraam ee soo baxay wuxuu ahaa kii uu sameeyay Faysal Mushtaaq waa laxanka loo yaqaan Subcis wixii inta ka horeeyay buu halkaas 67 buu qaraamku istaagay waa intii ka horeysay heesaha waa beydad gaaban oo la isku bedeli karo hees tusaale eriya laga yaabo in carwo ku jireen ayaa laga yaabaa in nugul iyo lagu daro beerdilaacshe ama raaxayaasha mid kamid ah ninka ugu badan ee alifay wuxuu noqonayaa qarshe waxaan maleynayaa kaalinta labaad inuu gali karo Maxamed Saciid Faarax gurroon jire iyaguna waxa la xanay labada nin ee ehelka ahaayeen la oran jiray ilma Nahaari Maxamed Nahaari iyo Xasan Nahaari xasan aadan halaac baa isna wax kala ahaa qaraamka rag badan noocaas ayaa lahaa marka qaraamka waa 91 laxan si guud tiro kooban oo 10 ka yar baa la adeegsadaa inta badan tusaale laxanada aan la adeegsan madiix iyo kale iyo cilmi adeegsato laakiin waa 90 laxan 91 baa la gaarsiiyaa waa laga yaabaa in intaan ay ka sii badan yihiin marka heesaha sumada goonida lahaa gaagaabnaa ee la isku bedeli karay inta badan jacaylka lagu maartay lagu soo bandhigi jiray ayuu aad u mastacmar buuga waxaad door inta ugu horeeya maanta ugu badan hore waxaad kaga hadashay qisooyin runtii qaar kood aad xiisa badan yihiin oo ku saabsan dhacdooyin fanka ka dhex jiray xilligii uu aragtay baarka sare oo yeelanay ama heerka sare ku socday oo sidii toddobaadkii la istaagay u dhaxaysay waxaad si gooni u xustay ninka la Maxamed Cali Kaariye oo la yiraahdo dhakhtarka jacaylka Maxamed Cali Kaariye waxaan hore uga adigu qoraal ka sameeyay intaadan buuga soo saarin oo kaga hadla miisaankiisa runtii Maxamed Cali Kaariye sahan aan dhageysan jirnay aan jecelnahay runtii qaari leeyahay waan ogaa laakiin to that extent in ilaa heerka uu gaarsiisay yahay ma darasanayn Maxamed Cali Kaariye bal hadaad erey laba ka tiraahdo dadka barto Maxamed Cali Kaariye horta magaciisu waa Maxamed Cali Axmed oo Maxamed Cali Kaariye loo yaqaano Maxamed Cali isaga la magaca sheekada u badan ee ku jirtaana waa sheekadii ka dhaxaysay isaga iyo Shankaroon Axmed Yuusuf oo sagal loo yaqaan Shankaroon Axmed sagal waa de sheeka runtii shaacsan oo cid kasta og tahay oo fanka Soomaalida aad ugu dhex jirto inkastoo dadka Soomaalidu aanay kala aqoonin maxaa sir oo aan loo baahnayn in la sheegay maxaa la sheegi karaa inoo aad inoo kala socona marka waa silsilad runtii buuga ku qoran oo dhakhtarkii jacaylka ninkii la baxay Maxamed Cali Kaariye ka waramaysa riwaayadihii uu ka sameeyay arintaas
ka warramaysa heesihii kala duwanaa oo igu horeyso heestii uu qaadayay Axmed Cali Cigaal ee ahaa dad Hargeysa soo maray mahalkii dharaarti oo ahaa barbilowga xiriirka ka dhaxeeyay isaga iyo Shankaroon iyo halkay maartu ka unkamay hurdo kama bogto baa ku jirto silsilada iyadana waxaan wareystay Khadiija Foodi mostly dadka inta badan buugga waa primary source badankiisu researchka laba loo kala qaybiyay waxna wax weyn wax cid kale ka soo xigatay laakiin badankiisu ama qofkii baan wareystay ama waxaan wareystay qofkii qof wareystay oo marka macnaha xogta ugu fog weeyaan ku qoran buugga taas waxay inta badan keenaysaa sugnaanshiyaha maaragtay waxa ay ku qoran Khadiija Foodi waxa jirta filmaanta aragteen characters bu film kasta leeyahay major characters iyo minor characters marka sheekada Maxamed Cali Kaariye fanaaniin baa wada dhexaad u ahaa waxa Xasan Aadan baa kamid ahaa Khadiija Foodi baa kamid ahaa Khadiija Foodi Nuur waxa kamid ahayd Hiba Nuura oo idan heesaan qaar qaatay Axmed Cali Cigaal baa ku jiray iyo intii kale riwaayadaha la maaragtay hawaalada jacaylkan weerarkan intii riwaayadaha la jireysay marka sheekadaasi waxaan u maleynayaa Maxamed Cali Kaariye sheekadiisu waxay xiise gooni u yeelatay wuxuu ahaa nin haystay qalabkii wax ku cabiriyay oo dhan abwaan buu ahaa wali maamul buu ku shaqeynayay oo marna agaasiba wax soo saarka waa ka marna waa ka tiyaatarka Hargeysa ka ahaa maareeyaha marka fursadiisa si uu gudbiyo iyo fariintiisa aad bay ugu fududay isaga marka eegto sheekada iyo heesaha ku jira tusaale ahaan heesta la yiraahdo ma hayo mana sugaayo iyo mana maqne inta badan sheekooyinka dadka hadii loo sheegi waayo sheekada sugan qofka markasta wuxuu u baahan yahay macluumaad inuu helo marka isaga wax samaysanaya laga yaabo mararka qaar inay ka qurxoon tahay tii xaqiiqada ah hees waxa jirta la yiraahdo ma hayo mana sugaayo iyo mana maqne oo Xasan Aadan Samatar qaado waxa alifay laxanka waxa saaray Xasan Sabriye Afrax ninka la yiraahdo Xasan Great oo runtii isna suugaantiisa dhinaca uu kaga jiray ay caan tahay oo tusaale ahaan sidoo uu sameeyay kamanka iyo laxanka iyo waliba heesida lafteeda door muhiim ah ku lahaa marka sheekadu waxay ahayd Shankaroon iyo Maxamed Cali Kaariye gaar ahaan Maxamed Cali Kaariye oo jacaylkii uu qabay ay runtii meel sare marayso ayaa caqabad baa soo kala dhex gashay oo Shankaroon baa reer kala samaysatay marka koox fanaaniina oo saaxiibadii marka ku dhawaa ahaa isaga ayaa waxay rabeen bal culayskan soo food saaray inay la qaybsadaan oo ninba tala iyo wuxuu soo kordhinayay iyo samirsiin haday noqotaba inuu marka iyadoo maalin la wada joogo Shankaroon waa iga sheekaysay Xasan Gareedna waa iga sheekay laftiis Xasan Aadan laftiisna waan weydiiyay iga sheekay ayaa ragii meesha joogay waxa kamid ahaa Xasan Diiriye Faarax ninkii la oran jiray naxariisto waxa kamid ahaa Xasan Gareed Xasan Aadan Maxamuud ninkii la oran jiray Buqtaani Xuseen oo Faarax marka taladii iyadoo meesha lagu rogrogayo Maxamed Cali Kaariye ka tagay marka isla maalmahaas Shankaroon intay reer samaystay bay Carabaha tagtay marka iyadoo la leeyahay maxaa la yeelaa iyo ninkan maaragtay odayga culayskan sidee baa loola qaybsadaa iyadoo xaaladda halka taagantay ayaa Maxamed Cali Kaariye ka baxay madash kadibna uu ku soo laabtay mar kale wuxuu arkay golihii ay ku soo biirtay Maryam Mursal marka isagu sidii uu jeclaabay la noqotay oo qofkan soo laabtay inuu noqdo inay Shankaroon ahayd marka Xuseen oo Faarax baa hees sameeyay la yiraahdo leebkii jacaylka oo kaga warramayo saaxiibkiisa dareenkan maartay soo waajahay iyo sidoo isagu impressionkiisa u akhriyay Maxamed Cali Kaariye wuxuu sameeyay mid kale oo taa kaga jabay leema hayo mana sugaayo iyo mana maqna macnaha rajam inkastoo markii dambe ku maartay guuleystay oo ay iskursideen ay maartay marka laakiin dadku waxay yiraahdaan inta badan ilma mooge iyo Xasan Aadan tartan dhex maray ay ku soo baxday laakiin xiriir lama laha labada muuqa aan la sida caadiga ah waxa jirta marka laga yimaado heesaha hirgalay qof gaarkiisa ula tartamay ma jirto koox uu Maxamed Salmaan intuu la tartamay boqorka codka la siiyay ma jirto koox intuu Xudaydi la tartamay la siiyay boqorka codka laakiin waa un tashriif iyo qofkii maartay in lagu sharfo marka sidaas la mid ah tartan Maxamed Mooge iyo Axmed iyo Dhexmaray Samatar muu jir marka saasiidana tahay heesta ما سن عمر حساب قرتي
horbay dhiibtay oo waxaan ka bogan waayay sidoo aad u xiriirisay waraysiyada aad ka qaaday fanaaniintii Soomaalida ee fanka doorka weyn ku lahaa rag badan iyo hablo badan oo ka midna ay geeriyoodeen intii xitaa aad shaqada ugu socotay dadka aad isleedahay xogta ugu fiican ama ugu muhiimsan macluumaadka buuga ku jira waad ka heshay aad xus lahayd caawa yaa ka mid ah dadka qaarna intiisa kooban buu ilaashanayaa qofna waxa laga yaabaa isna taariikhdiisina uu sheegi karaa oo storytellingkiisa fiican intii ku hareereysneedna waxbuu ka ogyahay waxa kamid ah gaar u xusay ninka la yiraahdo Axmed Salaaman Maxamed ninkaasi wuxuu aad cajiib ugu yahay isna uu yaqaanaa warkiisa sidoo u sheegi karo iyo wixii aad u weydiisay sidoo u sheegi karo saaxiibadiisii muddada dheer ku hareereysnaana uu sheegi karo marka Axmed Salaaman Bide ayuu kamid yahay ayaa kamid ah macna ragga runtii sheekada xogta fiican igu kordhiyay buugga waxa ku jira ilaa in ka badan 300 oo sawir oo dhammaantood caption u ah dadkan ka waramayo goobaha kala duwan ay joogaan iyo waliba qof kasta iyo xogtiisa hadii uu yahay qofka sheekadu toos ugu socoto iyo hadii uu yahayba qof si uu u soo galay ama riwaayada ku jiray ama la xasaaray ama ereyo curiyay ama saas marka waxaan u maleynayaa literature badan iyo suugaan badan waxba laga qoray laakiin wax buug dhinacyo kala duwan taabanaya oo runtii barbilow fiican u noqonaya guud ahaan fanka Soomaalida iyo dhigaalkiisa oo qofkii hadda kadib wax qorayaana ugu yaraan uu tixraac ka dhigan karo si wixii ka dhiman uu ugu dari karo kii kale ee raba inuu xog macluumaad ka ogaadana ta kalena waxa jirta inaga xogteenu qaabkaynu u waranaa waxa weeyaan baan hadda ka hor su'aal weydiiyay waxaan ku leeyahay dhacdadaasi goorma dhacday wuxuu ku intii u dhaxaysay 60kii ilaa 80kii marka waxay ku sheegaysaa sida xogteenu maaragtay inaynu sugnaanay macna weyn bay nolol lahayn 60kii ilaa 80kii waa 30 sano qof baa intuu dhashay buu tamariyo kadibna dhintay marka xisaabta waxa la sameeyo waxa la yiraahdo drawing loo sameeyo tay u dhowdahay baa taqriiban loo geeyaa hadii tusaale ahaan 6 ay tahay 7 taasay u dhowdahay laakiin de 30 sano oo maaragtay saas loo baas gareynayo waxay ku muujinaysaa laakiin buugu dadka historygooda laga waramayo qof kasta oo ku jira xogtiisa detailedka oo ugu horeyso meesha ku dhashay iyo xilligu dhashay xilligu hana qaaday hibada fanka xilligii u horeysay wax soo saarkiisa la arkay detailedkaas dad badan oo ku jirin waxaan uga tagay xogti basicska ahayd oo ka maqan qofka hadii qofku isagoo weyn uu lama arkin laakiin wuxuu leeyahay root la raacayo qofka marka waa meelahan isleeyahay taariikh tabinta tilmaan fiican buu noqonayaa buugan aad u maasanta Umar buuga markii aad ka warramaysay waxyaalihii ku riixay inaad hawshan dhaqaaqdo waxaad aad xustay ninkii loo jeeday Cabdideeq si warfaa Cabdisinimo oo taariikhda sida inta sugan lahayo ah ninkii ugu horeeyay sameeyay heesaha balwada waxaad ka warrantay intii fanka ku jiray bilowgiisii dhibaatooyin fara badan oo soo food saaray iyo duruufo la soo kulmay oo aakhirkii uga soo gudbay inuu shaqadii uu waxay hawsha u dhaqaaqeen oo miro fiican ka keeno Cabdideeq si warfaa Soomaalida aad ma taqaan ama aad looma xuso doorkii uu ku lahaa fanka casriga Soomaalida maxaad ka sheegi lahayd horta Cabdideeq warfaa ama Cabdisinimo waa ninkii lahaa orahdii aan ku bilaabay ahaa wixii la qoromahada muxuu hadal qiimo leeyahay waa ninkii lahaa ninkaasi kooxdii balwa baan waa ninkii aasaasay waxa runtii waxaan filayaa isla Somali Week si fiican uga warramay Bashiir Good oo runtiisna ah nin suugaanta Soomaalida aad ugu dhuundaloola meelo kamida isagan ka soo xigtayba aadna waan ugu mahadcelinayaa waliba beebar kale oo qoray oo kaga warramaya balwa baan iyo historygeeda iyo taariikhdeeda dadkan la kulmay waxa kamid ahaa Suleex Madar oo kamid ah balwa baan kamid ahaa hadda wuxuu kamid yahay golaha guurta Soomaaliland Boorman ugu tagay marka dadkan wareystay ayaa ku jira Umar Deeqsi warfaa oo Cabdi la dhashay Cabdisinimo
isagana waxaan ugu tegay boon agteeda isna waa soo wareystay nin kale walaal yihiin Khadiija Balwe isna waa wareystay marka Cabdi Deeqsi wuxuu ahaa ninkii Balwe baan aasaasay Balwe baan waa kooxdii Balwe runtii ay ka dab qaateen walaalaha Hargeysa laftoodu Balwe ka dab qaateen Ibrahim Garba Yare oo isna Djibouti ka joogay oo kamid ahaa isna kooxda Balwe baan isaga laftiisa waraysiyo aan ka helay Djibouti waa meelahan soo xigtay bay kamid tahay marka Cabdi Silimo si kooban wuxuu ahaa ninkii fahmay in fanku sida kaliya ku noolaan kara tahay in la xal la saaro Soomaalidu sideedaba dee fan way lahaydo fanku kale uu noocyo badan yahay oo ninka xoolaha dhaqanaya wuxuu naftiisa ku madadaashaday ee uu duruuftiisa ku cabira waa fan kan geel jira ay geela dhaqanaya fankiisa naftiisa iyo deegaankiisa wuxuu ku maaragtay ku cabira waa fan laakiin fan dadkan dhan ka wada dhaxayn kara oo qof kasta sidoo doono u dhigan karo noloshiisa ku cabiraya waa fanka laxan kale waana fankii ay ka bilaabmatay dagaalka lagu qaaday fanka Soomaalida runtii oo waxa jirta waraysi aan helay oo Xuseen oo Faarax aad uga warramay dhibaatooyinka uu kala kulmay Ingiriiska isaga iyo Yuusuf Xajaadan iyo ragii xornimo dirarkana ahaa fankana ku jiray umadu sida caadiga ah qofka ka macluumaad badan yahay uu ka awood badan yahay marka la arkay fan ereyo wata oo ay fududahay ninka beerta qodayaana inuu ku cilcishado kan guriga dhisayaana uu ku cilcilin karo isla markaasna ereyada ku jira ay yihiin ereyo duruuf ka turjumaya Ingiriisku wuxuu arkay arrinta mushkilad waana meesha uu wadaadada iyo culimadii markaa joogtay uu isagoo adeegsanaya uu sheegay in bulshadii odayaashii in dhaqankoodii wax ka soo horjeeda ay soo ifbaxday Ingiriisku markaa dantu lahaa waxay ahayd dee muu rabin in dadka lagu kiciyo sida caadiga marka halkaasay horta ka bilaabmatay in bulshadii ay falcelin ka samayso oo iyagoo adeegsanay dadkay wax ka dhageysanayeen marka Cabdi Silimo wuxuu ahaa nin runtii meel fiican soo gaarsiiyay oo heer loo arkay wixii kaliya markii dambe lagu dagaalami karay oo 1960 markii xornimada la qaadanay intii hadal la sheegay iyo intii khudbada laga warramay waxa kaliya laga xasuustaa waa heesaha ay kamid tahay aan maal lahasheen maanta ay kamid tahay waxay muujinaysaa markii dambe buugan la yiraahdo fan masraxeedka Soomaalida ayaa qodobkaas si detailed uga warramaya oo ka hadlaya fankii dadku ay mushkiladda u arkayeen sidii markii dambe naruurada loogu arkay marka Cabdi Deeqsi warfaa inuu sawiradiisii iyo isaga iyo kooxdiisii iyo dadkii la shaqeeyay badankoodina way ku jiraan iyo qof kasta iyo doorkiisu qaadanay waxaan kale rabaa inaan ku daro magaca buugga waxaan maleenahay xagga hore idin mariyo fan iyo fanaan horta fanku waa wax guud waa art waana wax kasto maskaxda bini'aadanka ay si qurxin karto wax kasto laba ogay ahayno wax laga yaabaa waxa kamid ah qaab qoraalka iyo sawirista iyo wax kasta oo qofka xirfadiisa hal abuuro xirfadiisa space uga banaantay ayaa horta fan la yiraahdo kaas waa ka guud in fanaanna waa qofkii xirfadaas lahaa oo dadkii xirfadaas ku shaqeynayay way marka art and artist halkaas soo hortaan magaca ka soo qaatay Cumar Serbia qoraalka buugga ka soo wuxuu dadaal aad u badan geliyay waraysiyo saas uga sheegay primary resource oo uu ku keenay dad kala duwan oo meel badan ugu tagay oo kuwa badanna dalalka dunida jooga xitaa wareysata Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dhulka Soomaalida guud ahaantood Cumar waxaad sidan aad aan ugu bogay aad xaqooda u siiso si aad uga warrantay dadka kaalinta ugu weyn maqalka dhigteen waxa ay heesaan u jeclaysataa iyaguna doorkooda kula helayay musicianka amba dadka music tuma dadkaas musicianada heesaha Soomaalida inay noqdaan wax ku soo kordha noloshii fanka casriga ah lahaa barnaamijyada Cabdullaahi Qarsho aad ku sheegtay macallinkii fanka casriga ah yaa kamid ah oo aad caawa si gaar ah oran lahayd ninkaas ama qofkaas ba
muusikii ugu wanaagsanaa ama doorkii ugu wanaagsanaa heesaha hirgalay ee muusiga leh lahaa أنا وأنا حس لها هدين قطو آلة تمد وأنا حس لها محي الدين شيخ مؤمن كل أورنتري تيم نكاسي وحوها ننادى عبقرية وحوها برودكشن كي كصوب حي بوله بردة ونمبر عادو ترى بدنا رنتي صالح قاسم أحمد نور تشانجو سجا كوشيرة أو مركز دمر دليل ردي دون إماراتي أي تيل كانت بس عديها محي الدين شيخ مؤمن تيم الموسيقى دي سكولت كويدي جيستي وأنا قيمين كران ذوق يدرن كلا هاي وقرن كرا في كستاوة لكن قاعد فضايت كمركز نقطة مركز نقطة إبداع إن وحي سيدي الله دي جيسي كدوان قف كودي كرا أنا وتيم باسين لهرنتي أها معلن كي ملحن كي كوحدي أنكد عبد بشير النبور مدحضوها كوحدي بوليسكا أسلوب تاني راحوا عبد بشير وحوها يسووا هيجن أحمد سليمان بدية قاقيبة كواحد عن صحة قاقيب إبراهيم محمود قاقيبة يا مدحوها أنكت مركا وحنسين لها محي الدين شيخ مؤمن طريقة التشيم للعود باكرته وقارو ضد بدن باكو سامو بي تشيم طريقة ديسة أرضي بدن بارنتي كعندي سراعي وحنا ملايين يا هدي العلميين لها إنك مع الأسف فنكينا ما علميينه أو تثقيف لو ما بدلوا لكن هدي العلميين لها سكول سيستم مال في عم بكجري لها تشيم مركا لكن دي وحوم وسيدي عادي هيدي دتك هيبولي ده هي أنت نولادنا يسكجر أنتين بو أنت نولادي أفرتن كي ولا شيء بو كسي في عم بو قرن هاي سنة كي لبضة كوني لبعتني كودنا ودنتي marka dad badan baa Daawud laftiisu waa meesha ka soo baxay waa iskuulka Jim buu ka soo baxay marka anigu Jim Sheekh Muumin runtii Ilaahay uu naxariisto waa nin runtii u baahan in laga daba tago oo mushkiladda jirta waxa weeyaan qaybta muusikada oo fanka si guud awal hore iskuulaha jiray oo laga baxo لكن هذا واسكن انتوعسي قف كنا انتو اسكي سكودي كرا واسكا يرتا مركا waxaan u maleynayaa dabargo hadii wax dabargo ayaan qaybta ugu dhow inay dabargoodo waa qaybtaas muusikada oo aalaadkii tirada badnaa la tumi jiray marba waxa jirtay maandeeq barnaamij ay ku qabatay Muqdisho ay tisigis inahayd ma filaya 35 dumar ah ayaa kaligeed u tumayay قولي دي قاركين ودعوة مالها فيولين توحد معي شن يتوان قبل كل ومسلمة قاسمة كمتها مركا لكن دي وضد كاس سكولي كصابح هنا سكولي وبه مركاس وحنا ملايين يا مرة آلات كغيرهنا أوركسترا ويدور قيدون تا أورجن كيا ولا جيا با إن كمان كيا يحجاسي تران لكن أوركسترا دي كلا فلوت كي يو كلارين كي يو ساكسوفون كي يو فيولين تي يو في سارمونيك يوسف ماشي كبحي ماركت magacyadu way ku qoran yihiin dadkii muusikada Soomaalida ilaa dhowr iyo 20 qof baa ku qoran iyo qof kasta doorkiisa sawiradoodana badankoodu way ku jiraan buuga marka muxiidiin Sheekh Muumin baa runtii aan waxaan siin lahaa Umar adiga laftoodu waxa tahay kamanist guitarist oo Umar wuxuu tumaa gitaarka uu tumaa Umar waliba waxaan arkun aad u tacajabay heesaha hore qaraamka khaasatan berdi la cashe iyo laxanka nugul labadaba adigoo si aad quruxda uga dhawaashanay baltaada waan ka sugan inaad xogaa yar lagu diiriso oo hal heesan wax noogu yar dhufatay cod hadaad noocdayse waxaan ku diiyo Jim Sheekh Muumin oo saa sheegtay qiimaha weyn ku lahaa fanka dhexdiisa khaasatan muusikada heesaha ugu caansan ama heestaas leeda way ugu qiimo badan ugu caansan tahay uu muusiga u tumay teeba kamida wali wax jecel banaad yar namqashi socod ahaan aad xusuusta ku hayso Jim horta wax soo saarkii kooxda onkod badankeeda isaga lahaa tusaale ahaan lama huba hal foofta inay caawa soo hooyeen oo qaadi xaraga jecel ninkii la oran jiray magaciisa waxa la oran jiray xaraga jecel maxamed cumar cabdullaahi xarago magaciisa saxdi laakiin waxa xaraga jecel buu hayo hees Axmed Salaam bedelahayo ayuu kula baxay magaca
waa ninka la xameeyey caashiqa ma baran weli ninka la xameeyey weeyaan kasi xajaadan iyo xarago album baa jira iskuulkii la odhan jiray studio la odhan jiray raaxeeye maxamed salabaan tabeec oo ku lahaa iska dabka album waxaa jira uu halkaa ku tumay jim oo runtii ilaa 30 heesood ka badan oo fanaaniin kala duwan oo tumay marka music dhisidda tusaale ahaan caashiqa ma baran weli oo kale wajiyaal is xasuusta marka dhageysatid macnaha waa dareemaysaa qof mubdic ah oo mawhuubi inuu maaragtay dhisay muusikada waa dareemaysaa tan ku saabsan codka cilmiga waxa la yiraahdaa waxna waa muktasib ma ogtahay qofka shaqeysta oo qofku inuu taariikh ururiyo in wax raadiyo sameyn kara laakiin waxa jira wax hiba ah oo maaragtay oo qofka aanu marka anigu xagga codka waa laga fiican yahay waana isaqaana runtii qofku inuu yaqaan lafteeda way fiican tahay waxa la yiraahdaa qofka maaragtay waxa la yiraahdaa al-hikmatu man arafa nafsu marka waan حسوسين هذا هسه سلادي ميوزك شيخ مؤمن تيم شيخ مؤمن متكمل هسه والحمام الله ما هو بالفوت الدعوه ما متكلا ادو دوخاغا بل تنجعلي بان شيء كره horta cod ahaan waa ka cudur daaranaya laakiin heesaha tirada badan leh runtii anigu hadii hees la qaadayo waxaan ugu jeclaa heesta la yiraahdo waa geeri caashiqay marwo maxamed ay qaaday aadan tarabi leeyahay ayaa jirta marka waan ka cudur daaranaya xagga codka jin baa la xameeyay buuga cumarow fanaaniinta ama hobolada taariikhdooda xustay sidaas sheegtay mid walba si brief ama kooban baad uga hadashay meesha ku dhashay meesha ku barbaaray taariikhda fanka ku soo biiray ilaa geeridiisa intii geeriyootay iyo inta noolintaba waxaan halkaa arkaa inay markaa ku jirto xus weyn oo ah inuu hay'ad cilmi ah inaad dadka barto qofka ka warramayso qofka uu yahay doorkaas aad fanaanka Soomaaliga dadka baraysa iyo xilli maaragtay noloshiisa ama doorku ku leeyahay dareen ahaan bulshadu si ugu baraarugsan tahay bad isleedahay in la barto qofka fanaankii kaalinta nolosha kaga jira ama halku ka soo bilaabay ilaa halku hadda ka jiro dadkan fanku qofka anu communication kan kolka hore waxyaabaha wax ka barto xakmada communication ka marka qofka wax la sheegayo waxa laga fiiriyaa closeness waxaan qofka loo sheegaya intee buu u dhow yahay qofkan oo khuseeya marka taariikhdu ama history-gu si guud culumta kala duwan ee jaamacaadka iyo iskuulada aan ku barano way ku jirtaa meel ay kaga jirtaba marka tii aan dhigan jirnay culumtii aan dhigan jirnay anigu si guud qofku inuu fahamkiisa balaariyo oo fan oo dhan ummadaha kala duwan shucuubtooda iyo qaab fikirkooda iyo dhaqankooda inuu barto aad baan u taageersanahay waayo information bay ku kordhinaysaa qofka laakiin inuu ogaado tan isaga khuseysa taas waan runtii waa arrin aan isleeyahay meelaha iskuulaadka iyo meelaha khuseysa jaamacaadka kale tusaale ahaan dalka kale waxaan geeyay ilaa iyo 20 goob oo aqooneed waan geeyay buuga waayo waxaan isleeyahay cid uu gaar u khuseeya waa cid wax baranaysa oo qofkaas hadda researchna laga rabaa inuu wax tirsana laga rabaa ogaalkiisa inuu kordhiyana laga rabaa inuu wax gudbiyana laga rabaa marka waxaan isleeyahay qof kasto bulshada oo ugu yaraan raba inuu dhaqankii iyo fankii iyo taariikhdii wax ka ogaado wax fiican buu kordhinayaa buug aad baad masantahay Cumar dadka sharafta leh golaha fadhiyo waxaan siin doonaa waqti iyaguna ay su'aalo kugu weydiiyaan waxaan si rabaa in mar kale idinku dhiirigeliyo buugaas maaha uun inuu ka hadlay fan iyo fanaan oo aynu garanayno si kooban laakiin buugu waa buug cilmi marka sidaa Cumar sheegay waxaan isku dhiirigeliyay buuga inaynu inoo dhiirigeliyno qoraaga laftiisa oo sida ayaan sheegtay bilowgii Cumar waa dadka hal shay intay u istaageen halkii shay joogtay midho wanaagsan ka keenay sida ay walaasheen wada albafas oo kale waxa kale xusuusnaa barnaamijkan hadaynu joogno intaan ugu garanayaan baxsanahay waa wixii ugu horeeyay Soomaali inta bilowdo joogtayn inta leeg la sameeyo ma garanay barnaamij kale muddo inta leeg joogto socday intaan ugu garanayo Cumar marka waxaan xasuustaa mar dhexdeed wasiirka warfaafinta Soomaaliland hadda inuu aad ugu amaanay inuu hal shay Cumar xooga saaray halkii shayna uu ka keenay natiijo aad u qiimo badan oo ah talaabaad qaadaysaa waxaan doonayaa inaan halka gaaro
runtiina aynu caawa arkayno buuggaa weyn oo 300 iyo dheeraad buga aynu hor yaallo markaas aynu dhiirigelino qoraaga iyo wax soo saarka qiimaha leh oo buuggu sidaba buugii boogta kale inoo yaallaba inaynu iibsano ayaan idin soo jeedin lahaa oo idinka codsanayaa ciddii markaas su'aal haysa waqtigan waa kooban yahay waxaan rabaa inaan siiyo dad badan baa gacanta taagay waxaan ugu horreysiinayaa Sahara Sheekh 10 minutes baa sana okay wasoo koobiye marka 10 minutes baa sana waxaan ugu horreysiinayaa Sahara soo garanaysa Sahara Sheekh Rashid Sheekh Cabdullaahi Cabdiqani waa isna gacanta taagay malnaya may okay Sahara yifsiga hay wala badan yahay ميكروفون waxyaabo fara badan baad kaga hadashay buugaaga dad fara badan oo qiimo lana waad ka hadashay miyay jiraan hablo mulaxaniinahoo buuga ku jira بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان كو سلام يا عمر وانا كوكو همبليين يا بوغا قيمها فرا بدن له وبوغ رنتي ده ملا شرحي كارو وليبا وقيبا عنوغا عن آدنا وجعل هاي ويا رجنما قارنا ولا هاي بوغاني وحنوران كرا وردقن كيو الصعدة سوماليكا الصعدة ومدا هنا ميلها لقى دراسية أما لقى أوغادو وحكم بداس جوغان تودا سؤال شو مركان سويدين يا واحد هاي عنوان كبوغا كم وقضاه iyo waxa uu xambaarsan gudihiisa ku jira waa kala laba waa erey qalaad in kasto ereyada la qarameeyo oo bulshooyinku kala qaataan haddana ereyga buugu sida waa erey qalaad oo af qalaad ah miyay kala qurux badnaan weydeen aad tiraahdo halabuur iyo hoobal maxaad ku dooratay fan iyo fanaan waad mahadsantahay saddex su'aaladoon ka dhignahay in kaas ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدين سلامي waxaan si gaar ah salaamay Umar iyo ninka runtii daadihinaya barnaamijka iyo marti sharafta dhamaantood waxaan isagana salaamayaa Abwaan Saciid Saalax macalinkeeni weyn runtii oo ummadda Soomaaliyeed qiimo badan ugu fadhiya mid baan rabaa Umar inaan ku weydiiyo midna way iga kaftan buugaagu inkastoo malaha goordman idin la soo la soo fadhiistay iyadoo barnaamijka horeeyay laakiin markaan buugan ka hadallo maadaama fanaanka uu ka hadlayay ma xagga jacaylku buu ahaa mise kuwii kale xagga wadandana ku jiraan matalan ninkii balaayo caslo oran jiray ama barkhad la caslo bixi markii dambe ma ku jira buuga mise waa arrimaha jacaylka kaliya buu culays ka saartay midaan kula ka aftamaya oo nibaa jiri jiray barnaamijkii radio muqdisho ka bixi jiray oo oran jiray sheeka xariir oo caruurta ay lahaayeen ayaa dawladda kacaanku ka joojisay barnaamijkii ninka waxa lagu weedeeyay inuu barnaamijyadiis u badnaayeen degaan ama qayb ummadda Soomaaliyeed ka mid ah matalan inta dadka reer hawdka iyo migrants inta Burcay Hargeysa iyo ilaa Jigjiga dabada ninkii wuxuu ku anducay isaguna war anigu de waastifaaco wuxuu war anigu ismaal hayn ummadda Soomaaliyeed kala qaybiyay meeshii madaqadii aan deganaan wixii lagaga hadlayay ayuun baan soo bandhigay marka adigu inkastoo waxa hadalkaagu u fahmayaa inay u badan yihiin walaalii Hargeysa markii dambena wixii ibsiitay waa bari ma ku jiraan fanaaniin si gaar ah ama waxyaabo ay lahaayeen ilaa lixdamaadkii kontonaadkii ama afartanaadii ka soo qaadatay dadka malaha kale Soomaalida aad baan ku salaamay way ay بروفيسور اوكي وي محمد سمكاب هي وان يرب بوبر على هذا وان سلام يا قراغا عمر سيربيا يا هيكل محمد عبدي حريريها يا بانكا لبدينا aad baan salaam ya soo koobay maadaama aan boobay عمر سيربيا manala wadaag kartaa sheeko yaro gaaban sheekadii kuugu cajiibka badneed inta aad baaraysa fanka fanaan ama baan ku saabsanay ka soo baxday aad ula tacajubto intaas ma ka codsanaa maasantiin waan ku faraxsanahay horta inaan runtii su'aalahaas iyo waliba talooyinkaas aan ku horeeyo dumarka
laxanka samayn jiray dumarka horta ha loo kala badnaado laakiin doorka kala duwan ee raggu ay fanka qaataan way qaadanayeen oo dawani ka sheekeynaya hadda dumarkii tirada badnaa ee bandhigii maandeeq kaban tumayay muusikada kala duwan dumar erayo curin jiray kuwa waxa jiray silsilad suugaaneedyo ka qayb galay oo deedeeleyba saada waa ku jirtay oo waa ogtihiin mulaxanka heesaha tusaale ahaan dumarka la xameeyay waxaan xusi karaa buugana ku qoran saada cali iyo maryam mursal marka saamigii dumarku waa ku qoran yahay tan ku saabsan ciwaanka runtii ciwaanku wuxuu ahaa wixii talada ugu badan aan geliyey wuxuu ahaa buug marka la qoraayo kole qorayaal badan baa jooga oo doctor jaamac iyo cabdibashiir iyo waa ogyihiin in wax la qoraa xogta marka la qoro ee lasoo ururiyo ee la taftiro iyadana waxaa hawl intaas qoraalka uu socday culayska intaa leeg culays la mid ah ciwaankii loo bixi lahaa marka waa laga yaabaa yani kaagaasaaba ila qurxoonba hadda ii sheegtay hal abuur iyo hoobal marka dee waa inaan is soo gaadhin macal asaf marka hore kan laakiin fanka waxaa jirta dood aniguna aan si u taageero oo professor cabdalla cumar mansuur uu qabo oo ku saabsan luuqaduhu inay isgalaan yaa soo horreeyey sidee loo kala horreeyey waa dood iyaduna furan laakiin waxaa muhiima uun halkii erey cusub loo bixin lahaa oo confusion cusub la abuuri lahaa in la yidhaahdo kan wixii waa tilmaan in la gartaa la rabaa uun marka maadaama dee qofka soomaaliga waxaan maranaya fan kuma adka ereygaasi fanaanna kuma adka marka simplicitygii iyadoo anoo adeegsanaya ayaan saa u qaatay laakiin kaagaas ila qurxon waad mahadsan tahay kan ku saabsan wadaniyadda ma ka hadlayaa buug mawaadiic gooni ah buug kama hadlay wuxuu ka warramayaa shakhsiyaad iyo dhacdooyin marka qofkii abwaanka ah tusaalahaan cabdi bashuur indhabuur oo kale wuu ku jiraa ismaaciil mire farxaan ninkii lahaa heesta africa ay hurudoy iyo hayse odhan nin cidi kuma arkayse afka buux ninka reer laascano wuu ku qoran yahay buugga cismaan aadan xuseen wuu ku qoran yahay marka qofkii hal abuurka ahaa dee wixiisi lagama tegi karo marna markaa wadaniyad buu gelayaa oo dee sugaantiisi ay gelaysaa marna jacayl bay gelaysaa marka waxay ku xidhan tahay shakhsiga iyo hal abuurkiisa iyo wuxuu soo saaray tan sanakaabe u dambaysa waxaan u malaynayaa taa ku saabsan maxaa kuugu adkaa sheeko xiisa leh oo ku jirta buugga dhacdooyin badan baa ku jira waxa ugu xiisa badan dadka hal abuur kale laakiin isaga iyo magaciisu ay kala wen yihiin tusaale ahaan ninaan kula kulmay fooldhuub la odhan jiro dhahar kula kulmay ninkaasi heese badan oon aqaanay haddii aan waraaqaha heestii faadmo dur ay qaadisi waa ninka iska leh marka anigu waxaan aada u xiiseynayay tuunyo oo kale ninkii lahaa ilaah baa deeq baxshee dulmiga caashiqa ka dah adduun waa wareeroo warya sheeka ka hadhan ninkii lahaa dee nin xoolo dhaqato ah oo beri dhaweyd buu dhintay ilaahu naxariisto xoolo dhaqato oo deegaan cidla iska jooga markaad historigiisa baadhid eed ogaatid ninka hibadaas ka leh inuu isaga yahay waa la yaab runtii iyo xiiso dadku waa wada salaaman yahay cumarna si gaaroo weyn buu mar walba u salaaman yahay ma wada oranayo waxaan buugga marar horena waa akhriyey waxaan ka dareensanahay in yaroo igu degdega oo aan rabo inaanay dadku kala tegin meesha sida loo oranayo oo qura oo inaka habowday ereyo maaha wax u gaaro oo khalad ah oo walaa cumar walaa haykel way galeen laakiinse yaan loo badan in laysku lamaaniyo laba erey oo la yidhaahdo fan iyo sugaan si fiican baad fan u sharaxda sharaxa aada hadda fan ka sheegtay ayay suugaani ku jirta oo ka mid tahay marka carabka aan ka ilaalino yaani dadku ina oran fan iyo suugaan laba wax oo kala baxay ma aha
aan ka ilaalino waa run erey waa la qaataa yaanan ku dheeraan aanu iga badani erey af kale waa laga soo qaataa terminology-ga sida erey bixinta loo isticmaalo laakiinse wax aad kala maaranto oo ereyga samayskiisa lifaaqyada ku darsamaya hadduu qof laxan waxa la sameeyaa hadduu laxan yahay qofka sameeya ayuu laxaniiste noqon waa af talyaani baa lagu daray weeye iminka iste waxa weeye waa inagoo niraahnaa abwaaniiste ku dara laxan xitaa isaga erey af soomaaliga waaba u haysanaayo in badan oo hadda waad isticmaalayseen oo waxaad leedihiin codaynta marka la codeeyo codadka la sameeyey haddii waxa la sameeyey uu cod yahay codeeyana uu falka qofka wax sameeye yahay mulaxin oo iyaduna ka samaysmatay luqad kale oo horgale aanu af soomaaligaba yeelan mu laxankiibaa xagga hore mu laga geliyey 6 erey baanu leenahay wax xagga hore iska bedela eegeennaan ku darin fanka waxaa mawduucyada lagaga hadlaa adiga maaha waxa kan oo dhan wax Cumar wax ka sheegaya waa si loo batay inaguna mar u isticmaalayno waxa mawduucyada suugaani ka warantaa iyo heeso jacayl iyo wadani wada maaha markaynu isa su'aalayno jacayl iyo wadani waliba dad baa si u yiraahdo wada maaha carabka waxaanu kaloo ka ilaalinaynaa ama su'aalaha waxa codka ugu wanaagsan musiga ugu fiican kan kugula caynkeeda waxa relativity-ga qof waliba wuu ogyahay qofba waxbaa wax u ah marka kuwa ka mid ah iyo isticmaalkooda hal abuur iyo hoobal kaaga kama fiicna kaaga waa labada mid baa ku jira hal abuur halkaa kuma jiro keli maaha hal abuur cidlo kuwa ana hoobal mid ka mida waa yahay fanaanka hoobal waa noqon kara marka fan iyo fanaan anigu bela kuma arko Cumarow 3 kaloo iga dardaarana si gaareen isugu sheegayna halkan male إذا ترندي ولا أنت؟ maadaama uu yaagi yaallo ma ka boobaa inanta hal su'aal baan rabaa Cumar inaan weydiiyo iga raali ahanaysaa su'aasheedu waxay tahay waxaan ku jiraa bahda warbaahinta akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo suugaantana jecel in badan oo waxaan isku dayay kaydinta iyo ururinta suugaanta shakhsiyan gaar ahaan sidee kuugu suurta gashay shakhsiyan inaad isu keento ururinta iyo kaydinta xogta buuggan xambaarsan yahay iyo buugaagta kala soo wada dhamaantoodba anoo soo koobay أنت السلام عليكم هرت عمر وصور دويننا welcome to London صور دوين London buugaagana anu horta waxaan ka mid ah dadka ugu horeeyay qaatay Hargeysan kale isagoo signed so I'm very happy Cumar waxaan leenahay forta fan iyo fanaan ama fanka ama wax ka ururisid waa wax aad u muhiim ah oo adduun weynuhu markuu wadankooda ama dadkooda wax doonayeen inay dadku ka fahmaan waa meelaha ugu horeeya ee ay dadku wax ka gartaan waa fanka iyo waa tileeri suugaanta ku daran waa fanka sidoo aad aragteen imka wadanka South Korea waxa ugu weyn ee dadku ka yaqaanaan ama culture-kooda ama dhaqankooda ka arki karaan waxa weeye fankooda ay la shargareen adduunka
su-aasheedu waxa weeyaan maadaama paper book ay aada limited u tahayna dadku helaan oona qof kastaba la yahay inuu helo ama macaaw yimaado ama uu iibsado maxaad ugu talagashay in terms of distribution inaad saad u qaybin lahayd digital ama isagoo oo online lagu helayo intaasaan doonayna ku weydiiyo mahadsanti waad mahadsan tahay walaalo Cumar anigu waxaan doonay inaan ku weydiiyo ma isleedahay buugan qayb labaad soo saar oo kaga hadlaysid contemporary singers kiyo muxuu ahaa dadkan abwaaninta ee iminka nool inaad kaga hadashid ta kalena doonay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan markasta waxaan maqalnaa Ilaahay u naxariistee cilmi boodari marka badanteed xogta ururinaysa gabadh cilmi boodari la dhigta ma soo heshay laakiin waan idin salaamayaa marka hore waxaan isleeyahay malaa wixii aan oran lahaaba Siciid baa yiri koleyba wax badan oo Siciid yiri bay ayay ku dhex jireen wixii aan oran lahaa badankoodu mid qulun baan uun ku soo koobayaa waxa weeye waa mid aanan u jeedinaynin Cumar waa mid aan gidigeenba intaan halka fadhiday iyo cidii kale ee hadalkaygu gaadhaba aan u jeedinayo waxa weeye waxaan arkay dad fara badan oo ay mushkilad ku tahay af Soomaaliga ereyada aan asalkoodu Soomaali ahayn qaarkood waliba waxay ka sii xantadaan luqada Carabiga ereygaas waa Carabi oo meesha laga saaro صح معها سياسنا سيده هاغسن معها Soomaali waa af jira wuu qaadan karaa oo wuu liqi karaa oo wuu ku sii hodomoobi karaa afafka kale ereyada uga yimaada ereyada afafka kale uga yimaada way hodanaynayaan af Soomaaliga mid kale waxa jirta ereyar fara badan oo waqti hore af Soomaaliga galay oo aan si looga saari karaaba jirin haddaad imika tiraahdo khayr iyo shar afka af Soomaaliga inuu ka saaro دميانا نعسنما ينو هاي وينو نعسنما يعني خير يا شرعي نقص وانك كساره مدكله اريا فن وحوي ومجع جود فرشحن هلابور فرشحن او دمي او وداغو وي marka waa fan iyo fanaan qof kasta oo heesa ka gabiya ka painting sameeya أصلية كله حتى فنكو waxa uu galaa dhismaha guriga marka uu qofka engineerkii dhisayo shay kasta oo dadku sameeyaan qurxin buu ku daraa wuxuu la iskama sameeyay shaygii waxa lagu daraa qurxintaasina waxay ka timaadaa ibdaac qofka kan dareenkiisa iyo maskaxdiisa ka imanaysa marka taasina waa fanku shay walba wuu galaa kursigaas imika waad ka dhaxeli karaysaa fan baad ka dhaxeli karaysaa marka fanku waxa caamka ah waa magaca guud marka in aynu fan ereyga la yiraahdo qaadano oo uu luqada Soomaaliga galo waxa weeye way hagaagsan tahay waanu galay ayaan laga dagaalamin oo laga saarin intaas uma doonayna wasalaam aad baa u mahadsantiin dhammaantii oo ka cudurdaarnaya waqtiga naga dhamaaday inaanan su'aalaha sii wadi karin Cumar baan doonayay si kooban oo degdeg ah maartay oo noogu dulmaro labada su'aalood labada aqoon-yahanba waanayna siiyeen laakiin labada su'aalood waa mahadsantiin su'aal adres Rashid iyo adres Saciid labadooda way mahadsan yihiin runtii waa darsi waxa jirtay su'aal aan markii hore si weel duufay oo ahayd in buugga ma loo dhan yahay ayaa ku jirtay su'aal ahayd waxaan maleynayaa horta hibada si loo qaybiyo deegaan ahaan inay xogaasi u adag tahay laakiin nasiib wanaag Soomaalidu deegaan uu joogaba qofka Soomaalida waa hibo leeyahay marka haddii ay jiraan dad aad isleedahay marka buugga akhriday insha Allah deegaan hebel buu joogaayo qofka in laga hadlo taariikhdiisa way mudan tahay runtii waan iska kaashan doonaa laakiin waxaan isleeyahay nasiib wanaag dadkii kala duwanaayay industry-ga fanka ka shaqeynayay ama ka shaqeeya badankoodu fanku wuxuu ku yimaada iskaashi oo tusaale ahaan markii hobalada waa bari la isku daraayay idaacadaha labada idaacadood dadka ka socday la isku daraayay
kooxdii ciidamada la isku daraayay nin kasta xirfadiisa ka kala waxbay u tartay marka way ku wada jiraan wixii aan ka tagnayna kolley buugga maaragtay dabacadaha labaad ayaynu ku dari doonaa insha allah taasi waa taas su-aashan kale suhuur waa run qof kasta sibaa u fudud inuu buugga ku akhristo oo ku gaadho hadda waxaan ka fikiraya weliba laba nin aan saaxiibo nahay ay gala runta talada ay lahaayeen dadka ay ku adag tahay inay hard ahaan akhriyaan dad ahaan si gaara dadka aragga naafada ka ah oo kale iyaga softy ayaan ku siiyey iyagoo maaragtay tiim ahaan iyaga laftooda waxaa la rabaa maaragtay wixii si ay ku akhrisan karaan kaasi waa runtii tan kalena Amazon-ka laftiisa inaan geliyo process-kaasna waan wadaa waan qorsheynayaa waa dariiqo kale oo qofkii uu ku gaari karo runtii tan kale ku saabsan suugaanta casriga ay ubaxay weydiisay iyaga doorkoodii waxaan ka soo bilaabay horta wixii lumayay oo ah taariikh wax kasta wuxuu ka taariikh ka fog yahay uu ka nugul yahay inuu lumo meel dhow baan soo gaarsiiyay runtii dee inta kalena ama aniga ama qofkii kale dee u fududahay inuu ka sii waramo waa hawl runtii taala aniga sida caadiga ma aaminsani hibadu timeless way hibadu waqti ma laha ninka kontankii ereygu curinayay Axmed Maxamed Balwey ereygu curinayay kontankii qof maanta jooga oo haykel ama qof kale oo dhalinyaro ah ayaa laga yaabaa inuu ka saameyn badan yahay tusaale shalay baanu ka sheekaysanay cawaale aadan hees baa jirto la yiraahdo haddii aan ismooy ka arsan la nin xasan gareed la yiraahdo igu yiri maraan ka sheekaysanay mowduucan wax soo saarka dhalinyarada fanka iyo hadda wuxuu igu yiri markii anigu aabahay ka samray adiga riwaayada aan la xameynay haddii aan laxanka heli lahaa hees kamid ah heesahaas laga yaabaa heesta guriga sameyn naqaano inay laxankan aan siin lahaa haddii maaragtay aan heli lahaa buu yiri marka aad buu runtii ugu riyaaqay oo ula dhacsana marka taas waxay cadeynaysaa inay hibadu aanay waqti lahayn marka dhalinyarada hadda laftooda taariikhoodii wax kaliya waxa loo baahan yahay in la kala shaandheeyo oo bariga hore qofka radio Hargeysa ama radio Muqdisho ama tiyaatarka loo diido meel kale wixiisa ku soo bandhiga muu helahayn marka taas xogaa waxay keenaysaa intuu waqti helay inuu tabeec noqdo qof baa laga reebay oo space way marka laakiin hadda dee qof kasta gacantiisa ku jirta wixii marka cid maar si loo kala shaandheeyo lama yaqaano su'aashii ku saabsan ma jirtay gabadh cilmi buudho dumar badan baa jiray oo runtii isbarbardhigu kolley qof asibay ula muuqataa laakiin dee khatarada ay lafteeduba suugaanteeda half of it iyada ka waramayaan marka waa laga yaabaa ereyadii uu cilmi boolari uu jacayl uu ku cabirayay iyo kuwan kale ee denkastoo khatare iyo fanaaniinta kale loo Marwo Maxamed baa tusaale fiican iyaduna Marwo Maxamed Cabdi gabadhii dee ugu dambeyn u god gashayba gaasira absolutely gaasira waa geeri caashq gabadh lahayd qofku dee xaaladiisa iyo sidoo uu haleelay iyo ilaa heerkeebu qayb ka ahaa noloshiisa inuu waayo waa gaar laakiin dad badan baa jira runtii waanaad mahadsantihiin asalaamu calaykum